ma ogtahay in gabdhaha qabiilka Hunza dumarkoodu ay uurka ku qaadaan kuna umulaan da'da 70 jirka xitaa haddii ay gaaraan dhalinyarnimadooduna ma ahan mid isbedesha mana ahan mid tagta da' gaaran kuma xirna waa qabiil sanadkoo dhan aan xanuunsan marmar dhifa ma ahane bal fiiri ninkan waxa uu jiraa 53 sano haddana weli waxa uu muuqdaa dhalinyaro dumarkoodu waxay ku naaloodaan caafimaad wanaagsan kaasoo u suurtagelisay in ay ku dhalaan xitaa haddii ay gaaraan da'da 70 sano jirkoodu waxa uu dhalaalaa sida caruurta oo kale waana dumar markasta leh muuqaal dhalinyarnimo cimriga dadkan waxa uu gaaraa in ka badan 140 sano qabiilka Hunza waxay ku nool yihiin dooxada Hunza ee waqooyiga Pakistan dumarkoodu badanaa kuma dhacaan cudurrada faafa ee casrigan jira mana isticmaalaan aaladaha internetka iyo taleefanada casriga ah waaba dad aad isdhihisid waxay ku nool yihiin meelo kale oo aan ahayn kan dhulka haweenkooduna waxay ka mid yihiin kuwa dunida ugu quruxda badan nolosha reer magaalnimadan ah maba yaqaaniin laakiin waxa kaliya oo ay yaqaanaan ayaa ah sida nolosha loogu raaxaysto loona daryeelo jirka sirta ka dambeysa in ay dhalinyarnimadu ka muuqato da' walba ay jiraan ayaa lagu sheegaa in ay tahay in dadka qabiilkan ay raacaan hab nololeed maalinle ah kaasoo rootin u ah noloshooda oo dhan waxay ku tiirsan yihiin cunista qudaarta cagaaran ee cayriin iyo borotiinka sida caanaha iyo ukunta waxayna soomaan 3 bilood oo kamid ah sanadka iyagoo ka raadinaya caafimaad cunada ay beertaanna waa kuwa ay duur ka soo gurtaan sida miraha suuqana kama soo gataan wax kiimika ah ama la soo bacramiyay waxayna ku qubaystaan biyo qabow xitaa haddii lagu jiro xilliga qabowaha ee sanadka hawl maalmoodkoodana wax ku jirta in ay lugeeyaan 30 kiiloomitir oo maalin kasta ah tirada dadka qabiilkan ayaa lagu sheegaa in ku dhow 1 milyan oo qof qabiilkan ayaana ah qabiilka bini'aadamka ugu la yaabka badan ee ku nool dunida tan